بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ملد جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوا ما يالو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت بهان الله ديقو انت بوقت الله بوكسيو انت دمت الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستا نغنا الله نوغا دبا نحريستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta hadalku waa toos, waxaan toos ula hadlayaa qabaa'ilka Soomaaliyeed. isaaq baan la hadlayaa ku bilaabaya. intaanan qabaa'ilka bilaabin waxaan cambaaraynayaa dagaalada iyo xabadda ka soo cusboonaatay meel kasta oo Soomaaliya ay degto, dadka shacabka oo la isku laynayo, dagaalada ay abaabulayaan maamuladu, hadday tahay maamulka Soomaali galbeed iyo hadday tahay maamulka Soomaalida xorta ah, labadaba waxaan cambaaraynayaa dadka shacabka ah ee la laynayo ee la xasuuqayo. absolutely wax la aqbali kara maaha. ummadda Soomaaliyeed dhiigeeda hadur maaha, macnu ku fadhiya, col iyo cadaawa ina ku soo socda, duulaan baaba layna ku yahay, dadina kama baxo. daaya xabadda, dhiga dabka. odayaashii nabadda abaabuli jiray oo waxaan arkayaa meel walba colaad ka abaabulaya oo la hal dagaalamo oo weerar hal la qaado oo xagga hal loo boodo. intaa kadib waxaan u tacsiyeenayaa intii dhimatay, inta dhaawaca Ilaahay u boogadhayo, dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen samir iyo iimaan Allah ka siiyo. intaa markaan ka gudbo waxaan la hadlayaa beesha isaaq. walaalayaal xabadda joojiya, waa baaba'aysaan. meel walba xabad haddaad ka wadaan, haddaad la tashataan dadka emotionalka ama xamaasadda wax ku dhisa, waa dhumaysaan. yani waxaan soo xasuustay shirib hadda ka hor ay nimankii abgaal u tiriyeen habar gidir oo duulaan ku qaaday meelo badan bay waxay dhaheen minaad sidii tintii tarme ciddii timaadba isku taag. yani haddaad sidii timihii soo baxaysaan, haddaad ciddii maaragtay xabad wadata waa la dirir. yani dagaaladan waa unnecessary. aad iyo aad wiilkaa aad dilaysaan iyo kan idinka dhimanayaa waa kugu dhimay oo waa kaa dhimay. waa dad ehel iyo qaraaba ah, meel walba waa dad isdhalay oo isla dhashay oo isu dhaxa. dadka xabadda laga dahay, dagaanaa dadku kala leeyahay. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu lacana Allahu man ghayyara manaar al-ardi. calaamaadka dhulku leeyahay iyo xuduudaha iyo dagaanada dadka ghayyiraha oo bedela, ilaahay lacnadiisu ku dhacdo. ma khasbi kartaan qof aan rabin aragti iyo siyaasad aad wadataan. intii iswaafaqsan oo isku siyaasadihiiba ha isku raacdo siyaasadooda. midda kale walaalayaal, ninkan hadda la doorto madaxweynaha Cirro oo shaqo adag iyo waqti adag wajahaya, ha ku sii adkaynina arrinta oo meel walba haddaa colaad iyo xabad kaga furtaan, ninkii ha fashilinina. xabadda daaya, dhiga dadka degaanka idinla ah oo ama xagga idinla dega ama Soomaali galbeed ha idinla degeen ama xagga daarood baan la dirinayda, ha la dirinina. maxaa ula diriraysa daarood? col maaha, cadowna maaha, waa dad walaalaha iyo ehelkaaya. ha la diririn, dhig. waxaa kaloo aan idinka rabaa isaaqow, siyaasiyiin caada qaatayaala, wadaniyadu ay ka fog tahay baa waxay saxiixeen oo muuse madax u yahay, baa waxay saxiixeen baddiinni inay siiyaan Etoobiyaan iyo cadow. baddaas difaacda. arrintu way kulushahay. hadda waxaa lagu heshiiyey adduunka juqraafigiisa in la bedelo. meelaha sahansan ee juqraafigeeda la raba in la bedela Soomaaliya ka mid ah, waxaa ka mid ah Syria iyo Lubnaan iyo areadaas oo dhan baa ka mid ah. waa la bedelayaa. bedelkaas Abasiiniya la rabaa, wadadii ay ka qabsan lahayd xaramka. waa tii xadiidka nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka inay qabsan doonaan amxaar luga dhuudhuwan inuu kacbada dusheeda ku istaagi doono. waa wadadii baa la rabaa in la dejiyo loo furo. baddaasaa la rabaa in bad loo sameeyo. idinkaa laydiin soo maraya reer Saylac, Ciise iyo Samaroon, iyagana waxaan leeyahay gacanta isqabsada. isaaqow kaca, Soomaali u fakara. midnimadii iyo qarnimadii Soomaaliyeed dadkii hormuudka u ahaan jiray baa tiine, ha gabaynina booskiinni. idinka intaasaa idin leeyahay. cirrana ha ku adkaynina arrintee, u fududeeya oo dagaalkii colaadaha ka daaya. nabad ha laga shaqeeyo, meel walba wafdi ha loo diro, ha la heshiiyo, ummaddu ha degto, ha la wada dego. meel kastoo la wada degan yahayna ha la wada maamusho oo qof walba wuxuu maamulku raalli ku yahay. ilaa maamul Soomaaliyeed waa la'anahay intaan mid ina wada deeqa helayno. nin walba wuxuu raalli ku yahay loo daayo, cidna lama khasbi karo. cidda reerka ugu yar lama khasbi karo. marka ina ka daaya, aan ilbaxno, aan wax baranno. qodobka intaasaan leeyahay.
waxaa la hadlayaa qolada labaad ee ku xigta waa daarood walaalayaalow dowladnimadii Soomaaliyeed idinka dhismi laadahay xaqiiqatan waa sidaa dowladii waa burburtay waxbaad ka burburisay jabhadii baa kula hayday dowladii hadda waxay ka dhismi laadahay waa idinka anigu runtan idin sheegay waxay idinka dhismi laadahay dhowr waxyaabood oo lagu heshiiyay ay ka mid tahay federaal oo idinku aan la gagabaysaan oo la ordaysaan idinkii baa hirgelintiisii la idinka karlaaya federaalka hirgeliya oo federaalku hawluu kala leeyahay maamul goboleedku waa governor ninka provincial governorka ah madaxweynaha ugu yeerinin oo dadka inuu isku taago oo maalin walba dawladda federaalka khaasatan Puntland oo anigu aan ka soo jeedo ay saa ugu taagnaato dawladnimadeennii guud baa ku dhumaysa xornimadeennii baa ku dhumaysa waa layna qaybsanayaa taariikhda hadda aan ku jirno waa taariikhdii Andalus kalmadaas si fiican u dhageysta Andalus inta la qaybiyay oo duwaylaad yar loo qaybiyay baa la kala qaybsaday maanta Spain baa la yiraahdaa gaala ka talisa taariikhdaas ay idin ku socota hurdada laga kaco daaroodo dawladnimada hala diriirnina oo ninkii federaal yimaadaba idinku ha isku taaginina oo ogolaada heshiiska siyaasadeed oo la ogolaa dastuurka dhameystira mid la isku waafaqsan yahay dhista oo la wada ogol yahay oo fariista oo isugu yeero ummadda oo shirar qabta oo dawladnimo ka shaqeeya oo nin siyaasi ah oo maqaaxi ahaan u isticmaalaya meesha oo isagu jeebkiisa lacag u urursanaya iyo xaaskiisa iyo faamiliyadiisa yuu idin horgeline daarooda waxa la hadlayaa cuqaashi odayaashan la hadlayaa qabiilkan la hadlayaa kaca oo qabsada dabada qabsada caana daatay waxa la yiri caana daatay haruub daatay caanaha hambada la qaban jiray dabada caymiya soo qabtay inta ku hartay oo gundhiga soo celiya dawladnimadii baa la idin ka rabaa hormuud baad ka ahaan jirteen SYL dadkii ugu qiimaha badnaa ugu muhiimsanaa baad ahaydeen xornimada dhaliyay walaalayaal oo dawladnimadii ay gacantiina ku burburin idinkeedana eersan 34 sano waa too much adduunku idinma sii xambaarsanaan karo waa la idin nacay please agta u dhiga oo nin stooge ah oo reer kale u raran ajnabi u raran jeebkiisana u raran ya talada yaan gacanta loo siideena ha lagu qabsado idinkana intaas idin leh colaadaha aad wadaan iyo dagaaladana joojiya dadka isku leynaysaan waa u baahanahay dadkoo dhan baan u baahanahay wiilashaas dhamaanayo idinka dhimanaya ama qolyaha kale aad la diriraysan ku dhimanaya waa wiilashii dalkan difaaci lahaa xornimada ilaalin lahaa badbaadin lahaa Soomaaliya qarannimadeeda dhiga dabka nabadgelyaha loo istaago qolada saddexaad waa hawiye madaxweynahaanu ma garanayo mana u malaynayo inuu caafimaad qabo u malayn maayo taariikh madow yuu idinka tagi 34 sano hadda badbaaday Soomaaliya waxayna ku badbaaday uun Ilaahay rabitaankiisa iyo fadligiisa subhanahu jalla fi ulah bay ku badbaaday idlaana la cid walba duulaan ku ah Soomaaliya u socota nin walba waa loo soo tartamaya mawjada walaalayaalow taariikh madow yuu idinka tagin Xasan Sheekh Maxamuud hadduu xanuunsan yahay oo maskaxda ka jiran qabta sanadkiisa u haray ha dhamaysto iyo barka cidina kuma haysato laakiin dawladnimada kuma jiro umana socdo heshiisyada uu saxiixayoon cidina ka warhayn ha ka aqbalinina dawladnimadu ma aha reer Xasan Sheekh Maxamuud waxay leeyihiin ee waa wax adigu wax ku leedahay waa wax magaciina lagu baabi'inayo taariikhda waxa idin galaysa sanadkii hawiye madaxda ahaa baa Soomaaliya la qaatay siday hadda ku socotana waa sii socotaa waxaan aad uga helay kelmado uu yiri Sheekh Shariif madaxweynihii hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka ajarsiye oo uu leeyahay aan qabanno hambada aan qabanno dalka aan badbaadino Soomaali wax ku walaadey jiraan aan isu soo baxno ninkan marka ama waa xanuunsan yahay ee qabta ama waa nin raran oo dabadhilif wixii lagu sameyn jiray lagu sameeyo halayna ka qabto yaani waxaan ka yaabay Soomaaliya qarnimadeedii baa miiska saaran afar nin oo hawiye ah baa ordaya xagga wuxuu u diray fiqi oo hawiye ah dhinaca kale wuxuu u diray Sambaloolshe iyo Bacli Balcad oo Ethiopian ba dhinaca kale isaga ordaya aaway Soomaalidii ma dawlad Soomaaliyeed ba oo ummadda Soomaaliyeed la leedahay mise waa wax uu ninka iyo reerkiisu ay leeyihiin oo idinku iska leedihiin ani waxyaabaha qaarkood waa laga xishooda idinka maanta odayaasha cuqaasha baan la hadlayaa ugaasiyada iyo samadoonada iyo nabadoonada hawshaan idinka iska leh ninkan qabashadiisa idinka leh dalkan yuu gacanta ka bixin iyadoo hawiye madax ka yahay wuxuu kala soo jiiday reerka uu ka dhashay in dib dambe loogu aamini kari waayo iyaan ka baqayaa talada ummadda maxaa yeelay isna waa qasaya oo burburinaya kuwii siyaasiyiinta oo buuqi jiray oo isugu jiray xataa qaarkood cuqaal ahaayeen oo maalin walba beelaha hawiye shirki beelaha hawiye qaban jiray xataa afka ay xirteen oo aamusan yihiin wasukuutu calaamatu ridda
aamusku wuxuu daliil u yahay inaad raalli ka tihiin wax socda war saas idinma qabatee ninkan odagaa qabta hadduu dabadhilif yahay qabta hadduu xanuunsan yahay qabta la taliya taladana kula dhaga ku qabsada sida aan u yiri kuwii daarood ha u sii daynina siyaasi ama dabadhilifa ama danaysta ah ha u sii daynina talada baan idinkana idin leeyahay ha ku sii daynina qabta gacanta ka qabta meel walba colaad iyo xabad buu la ordayaa nin wax garanaya uma eka siyaasad dowladnimo ma yaqaan mana rabo ganacsi buu ku jiraa beec mushtar dhulkii oo dhan waa gatay waa daawanaysaan idinkii oo dhan buu idin qixiyey 500,000 people baa xamar qaxooti ku ah isagaana ka saaray guriyihii dalku uu lahaa iyo dowladoodu ay lahayd oo ay deganaayeen meelaha carishada ka dhisteen kulli intuu burburiyey buu iibsaday waxaa daawan kartaan maaha iska qabta idinkana intaasaa idin leeyahay qolada afaraad culimada Soomaaliyeed maanta waxa aad ku sugan tihiin ma geydaan meesha aad taagan tihiin ma geydaan walaalayaal ma geydaan bayaanna loo baahan yahay shirar waaweyn oo aad isugu timaadaan oo aad kaga hadlaysaan ummadda masiirkeeda loo baahan yahay kuwa wadaadaba xabad la ordayo dadka laynaya oo baadaya oo dhacaya kuwa qowleysata oo tuug ah oo bilaadiin ah ba ummadii magacii diinta ku baabi'inaya intiina kalena haddaad aamustaan kuwana ay baaba'shaan diintoo dhan baa laydiin nacayaa ummaduna diinta way iskaga tegaysaa waxa hadda lagu socda haddaad sii daawataan qarannimada martibaa ka tigin oo maxaa marti idinka dhigay wax kuma idin miya dalkiinni maaha miya what is this maxaa idinka khaldan culimada sootay masiirka ummadda ka hadli jirtay sootay iyagu saldhig u ahaayeen واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم معني هذا صوتي علماء أهيد مدة وجوه الرئيسة كدب أي حكامته أهيد أوي أمرك إلهي إذن سيي أوي واجبك ربي إذن ساري ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دلك على قادنا يمنكر كوين أمة صوماليات أو مسلم بقول كيف بقول دلك هذا إنهم حارل لودي بالجورة شيء يكينيان خالبات كتير هذا إذن خالك وين هذلا والموقف كهذا قالتين ما جيدان هردك كعب أو سيدا يسود داما أو شر القبطة أو يسوي ماذا إذن كان أنت سعيد الله قلد قدام بيسان الله اللي هو شعبك الصوماليات دو لا حول ولا شل الكيس دكتال وقرا برلمان ملي يدين هذا عوان شقتك وشن $100 جوجي نقدين يا اسكو هلاين سامرك مظاهرات باللو باهين ميل كاستين aad ka hadashaan masaajidada inta tagtaan culimada inaad tiraadaan khudbada jimcada wax kale kaga hadli kartaan masiirka ummadda Soomaaliyeed ka hadla waxaad u baahantiin inaad isu soo bax samaysaan joogta ah ilaa dawlad Soomaaliyeed oo madax banaan oo xal ah oo hal madaxweyne la aad heshaan nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man ataakum amrukum jamii'an faqtuluhu sharkana laga baqay hadii idin kooneen idin xukumo شربها هذا نين حبها هذا ميت كلا انتي ما الحكم كوقف قبصة الدلب النبي صلى الله عليه وسلم معايا لي وحنا كدرني كنت دولة إذا سيرتها بالمشان رب الله هذه أركتين نوع عصائرين كشيء إذا كنا أمسنتين أمس قالوا مهريا جبر ما جبر بقى نقطتين كلين شعبه هذا دليلتين هذا شعبتين هردا كعب دلكي لو يستاج على الأقل مظاهرات يسمعي meelaha joogtaan oo ka mudaharaad wadanka oo dhan mudaharaad sameeyay dalka iyaga xornimadiisa ba duulaan lagu yahay bada iyadu beec maaha madaxweyne naba matalo siyaasi naba matalo dalka annagaana u tashanayna we the people annagoo ah dadka annaga iskale awoodda talada annaga iskale caalamku hadduu arko inaad ka soo horjeedaan hadda waxyaabaha la idinku tashaday waxa kamid ah war cid dan kale dalkan ma jirtee هلا قيبصدو هلا قاتو او تاريخ هالنقطه waxaan meesha ka bixin qashinka oo meesha fadhiya oo dawladda dhisan waayay 34 sano 5 sano markii dawladdii burbursanayd 1995 jaamacadda ingiriiska ku taala ayaa shir qabatay oo professoradeed inta u yartay waxay dhaheen haloo baaro dastuur kuwaanu dawladnimo ma istaahilaan dastuurada caalamka ka jiro dhan hal la akhriyo mid khariban oo saynta iyo afku isugu xireen sayntiya sanku isugu xiran yihiin oo ila meeraysa loo raadiyo oo aanay ka bixin waligood hal la geliyo ilaa dhulka marka dambe ay ka samraan oo laga la wareego waxaan aan ka hadlayno nooma sahlan inaan dhiraahno intaas oo colaada baan la kulmaynaa laakiin waa ku dhacaynaa ilaahay idinkiisna
waa ku badbaadaynaa sharaf bayna noo noqonaysaa waxna naga soo gaari mayaan waxaan idin leeyahay shacabow idinkuna muujiya qaybtiina intaasaan oranaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh